سائلكن wuxuu leeyahay sheekh maxaad ugu nasteexaynaysaa qof markuu tukanayo khushuucdu ka lumayso had iyo jeer salaada aan ku khushuucaynin su'aal labaad buu soo qoray wuxuu leeyahay saailkani qof baa wuxuu ku soomay wuxuu joogaa wadanada islaamka kamida oo ka dambeeya wadanada kale xagga soonka marka la eega hal maalin soonka xukunkiisu muxuu noqonayaa ma qofkaas sidoo u soomaya su'aasha hore jawaabteeda salaada dhuuxeedu وخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحي لهاي أماني مؤمنين تا قيمها بضن مركي تكنيان إلهي خشوعيا وأضونكي أكسون إنو إلهي إيغيو اسمق لي أن حولنين سيدا موبايل كان أحول مو تذكر قار كود بأحوله وأنا سينو بضن هاي انت تكنيان oo garan waayo meel uu marayaba ilaa uu dadka hareeraha ee ugu yiraahdo talo halkay wax marinayaan dibna wuxuu dhici karaa marka iyaguna isaga si eegaanay sidaadan talo isna xaq wax marinaya in la isla kadeedmo marka wuxuuna loo baahan yahay waajiba dadku inay ilaahay u soo jeestaan qalbigoodana ay soo xaadiriyaan taasina waxay u baahan tahay nafta in lagu tababaro maalin baad ku celinaysaa waad ku celinaysaa marka dambe way soo dhowaanaysaa qaaribu wasadidu marka taasi waa taas weeye laakiin qofka inta salaada ku jiro waswaaskan iyo waxan soo maraya waxba salaadii kama yeelayo wax awoodeena ka baxsan weey su'aashiisa labaad waxaan joogaa wadan mararka qaar kood khilaafa wadamada kale islaamka sidaan u Soomaa nabiga ka jawaabay sallallahu alayhi wasallam xadiidkii Abi Hurayra warinay markana Aisha ay warinaysay waxa uu as-sawmu yawma tasumun wal fidru yawma tufdirun soomka qofka la doonayo inuu soomaa waa maalinka dadku uu soomayo afurkiin iyo maalinka ciideysana waa maalinka dadkaasi uu ciidayo marka jumhuurka caamka aad la joogto ayaad eeganaysaa maalinna aad la soomaysaa maalinna aad la afuraysaa inagoo tixgelinayna xadiidka ama ku camal falayna nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wallahu a'lam jazakallahu khayr su'aalahan waxay u badan yihiin xagga arrimaha bulshada saailkan wuxuu leeyahay sheekh Maxamed waxa aanu haynaa dhul aan la garanayn cidii lahayd dhulka maxaanu ka yeelay oo nala gudboon saailkana wuxuu leeyahay waxa jira sharakaadka ganacsiga qaar kood oo markaanu badeecad ka iibsano hadiyadna siiya oo abaal marin oo kale noo siiya hadiyada ma ka gudoomi karnaa ama ka qaadan karnaa dhulka haysa ma amaanayo waa la idin dhiibay ma meeshaas iska yaala idin ku dhow yahay hadii idinka la idin dhiibay oo cidii lahayd garan weydeen waa ina baafisaan oo baadi doontaan hadii kalena dawladda idin iskaga wareeji hadii marka horeba jaaru idin la ahaana idinku mas'uuliyadiisa ma lihidin maamulka meesha ka jira ayaa mas'uuliyadiisa iska leh cidda uu siinayo u sharciyeynayo taas waa su'aasha hore jawaabteeda su'aasha labaad ee iyaduna sheegaysa shirkadaha ayaa qaar kood hadiyadna siiya aniga waxa way qofkii oo alaab ka soo iibinaya shirkadda isagoo shirkadiisii ka socda ama shakhsiba ka socda markaas wax la siinaya culimadu way ka digaan arintaas oo waxay dariishanayaan xadiidkii uu nabigu yiri hadiyatul umaali qulul dadka shaqaale hadiyada la siinaya waxa ay qaadanayaan hadiyadoodaasi waa tuugo sababtuna waxay tahay qofkan marka wax la siinayo laba arimood baa jira shakhsigiisa horta laguma siinayo shaqadiisa lagu siinaya waadu imika shaqadan ka tagu meeshan iska joogu dadkan u yimaado siin maaya ee waxay u siinayaan way danaysanayaan waxay isleeyihiin soo jiita taasi waa mid waa nooc laaruusha midka labaad jiraana waxa weeye waxay isaga badan tahay arintani qarsoodi marka ama wax yar oo ku naban la siinayo ama dilaa la siinayo ama wax la siinayo qarsoodi u badan xalaalna iftin baa la qashaabay ilaa Soomaalidu sharcigeenuna waa cayn kaaso nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ku arinta ka hadlay al-ithmu ma haaka fi an-nafsi wa karihta an yatali'a alayhi an-nas hadith sahih muslim ku sugnaa dambi waxa la yiraahdaa wixii laabtaada ku wareega talo ma xalaal ba talo ma xaraam ba aad ku dagi weydo isla markaana aanad jeclayn in dadku kugu arkaan labada arimood boo ay leedahay qofka dadka macaamiisha wax ka soo iibinaya
saa daraaddeed inuu waxa iska daayo mushaharkiisa ku egaado taasaa laga maarmaana culimada in badanoo ka midina way xaaraantinimeeyeen iyagoo nusuustaa daliishanaya wallahu aclam. sheekh maxamed, hadday yihiin dadkan laftooda kuwii macaamiisha ahaa oo markay wax iibsadaan iyagu oo alaabay iibsadaan si loo soo jiito macmiilnimadooda wax la siinayo wax dheeraada loogu darayo maxay tahay ayada xukunkeedu noqonaysaa? waa in shirkaddu isla ogtay haddii shirkaddu ay macaamiisha abaal marinayso oo wax caam ahoo mas-uuliyiintii laysla wada ogyahay uu yahay taasi dhib ma leh. jasaaka allahu khayr wbaaraka allahu fiik. sheekh ilaahi subxaana wa tacaala ka abaaliya siduu inoogu iftiimiyey. saa'ilkan wuxuu leeyahay ama sida su-aasha ka muuqata waa ruux dumara waxay leedahay waxaan arkay sawjkaygii ama saygaygii oo gabadh xidhiidh aan sharci ahayn la samaynaya, waliba gabadh aan muslimad ahayn. ma ii bannaan tahay markaa inaan ninka noocaasa inaan ka fogaado oo furaashkii iyo mucaamaladiina dhex mari lahayd aan ka fogaado aan ka durko? su-aashan labaad wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray ninbaa xaaskiisii furay 2 dalqadood kadibna wuxuu doonaya inuu ku ceshado soo ceshado, maxaa uga bannaan soo ceshiga noocaasa? su-aasha hore marka qofkani uu lamaanihiisa waxaa xun ku arko waxaa horta la gudban inuu shaydaanka ka reebo. ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran, naftiinna iyo ehelkiina naar ka badbaadiya. marka hadduu qofkii toobad keeno markii uu waaniyey ee uu la dadaalay oo sidaa ilaahay ugu toobad keenu soo noqdo uu asturiya uu iska dayn, guurkiina waxba uma dhinaysa arrintaasi oo guurkii muu go-in. labadii qof kuma kala tegayaan arrintaasoo heshiiskii u dhexeeyey caqadkii ma burin. hadduu qofkii dayn waayo nin iyo gabadh mid kastaba ha ahaadee uu arrintii caadaysto, markaasoo kale waxaa la gudban inuu qofkii furiin ka dalbado. xaaskii waa ina ninkii furiin ka dalbataa walow haba ka iibsatee. haddii uu diidana qaadiga ay gaadhsiiso, waayo qofka cafiifka aba lala noolaadaa laakiin qofka sine iyo xumaan caadaystay lalama noolaan karo. waxurima daalika cala almu'miniin, ilaahay wuxuu leeyahay dadka dhowrsoon lama xidhiidhaan oo ma guursadaan dadka xumaanta caanka ku ah. marka labadaa xaaladood baynu kala qaadayna. hadday mar wax ka dhaceenoo uu toosay waa la iska dayin, hadduu caadaysta noqdayna sidaasaa looga durki doonaa oo looga beri noqon doonaa. su-aasha hore waa taas weeye. su-aasha labaad ee uu ninkan yidhi xaaskaygii baa 2 dalqadood furay inaan soo ceshadana waan doonayaa, waad soo ceshan kartaa. hal shardi unbaa ku xidhanoo waa inaanay dalqadda kaa iibsan. oo ruuxa dumare hadday ninka dalqadda ka iibsato oo waddada khuluca la yidhaahdo ay marto iyadoo oggolaato mooyaane dib uma mehersan karo. dib buu u mehersanaya hadday oggolaato. wax soo ceshi la yidhaahdo raajactuna ma jirto, waan ku soo ceshadayna ma jirto, waayo arrinkeedii iyadii baa u madax bannaanoo dalqaddii iibsatay. marka shardigaasu arrintaasumaa la iska fiirinaya. wallahu aclam. jasaaka allahu khayr. sheekh maxamed weli waxaynu ku jirnaa su-aalihii xagga u badnaa arrimaha usrada iyo qoyska iyo wuxuu leeyahay saa'ilkani meher hadduu doonayo qofku inuu bixiyo wakti horena dabcan dhacay meherkaasi ma wuxuu ku bixinaya siduu u bixinaya ma lacagtii soomaaliga ee waktigaa gabadha lagu meheriyaa la bixin se hadda qiimo ahaan dollar waxay ku maraysa ayaa la bixin doonaa? su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilkani nin xaaskiisii furay oo 4 sano ay kala maqnaayeen, masaariiftii lagu xukumay ama lagu lahaana aan bixin 4 sano isagoo awoodaya, muxuu noqonayaa xukunkiisu? hadduuse imiga rabo inuu bixiyo siduu u bixin karaayo maaragtay looga rabaa inuu bixiyo? shayga la yidhaahdo meherku dee waa dayn dumarku ay ragga ku leeyihin. wakhtigii dayntan ay sugantay lacagtii la magacaabay hadday qiimo dhacday waaba sidii shilin soomaaligii hore ah oo maanta wax qiimo aanay lahayn, dee qofkii laguma horqubaya waxaan waxba u tarayn. laakiin waxaa lagu xisaabtamayaa qiimihii berigaa ay lahayd 30 sano ka hor, 40 sano ka hor, maxay xoolo nool ka goynaysay, maxay lacagtani raashin ka goynaysay, taasaa lagu qiimaynayaa. wax qiimo dhacay qofkii loo dhiibi maayo, caamayn bay noqonaysaa. waxaa u daliila aayaddaa suuratulbaqara qaybaheeda dambe ku sugana ilaahay wuxuu ihi wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun. qofka daynta qaadanaya waa inaan isna la dulmiin isaguna aanu dulsaar iyo ribo saarin. taasi waa caynkaa su-aashaa jawaabteedu. odayaal badan
oo xaawalaydoodii maanta mehersiinaya berigaa lacagtu maxay goynaysa waa in lagu xisaabtamaa oo xataa doolarkii berigaa laguma qiimeynaya waayo doolarka laftiisa sii qiimo dhacay doolarku qiimuhu berigaa 40 sano ka hor lahaa qiimuhu laa maanta male laakiin waxaa la garan karaa dhulka intay ka goynaysay raashinka xoolaha nool kuwaasaa qiimahooda uu taagan yahay su-aasha labaad ninku xaaskiisa 4 sannadood iyo caruurtii iyo xaaskii muu siinin masruufkii waa daynuun dayn lagu leeyahay wey markaa way ku biirtay wuu siin doonaa markaa xaqeedii ooridaas dayn baanay ku noqonaysaa wixii ay ka daysa mooyaane wallahu aclam jasaa allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala sheekha ha ka abaaliyo saa'ilkani wuxuu leeyahay maxay tahay xukunka in dadka laga ganacsado tahriibintooda oo lacag laga raadiyo ganacsi halkaa laga dayo su-aasha labaad waxaa jira dad u badan dhallinyaro rag iyo dumarba leh oo had iyo jeer xidho maryo ku dheggan oo aan cawradoodii si fiican u asturaynin qolyaha noocaasana sheekh maxamed maxaad ugu nasteexin lahayd tahriibta waxaa la yidhaahdo waa xaaraan weeye waa qofkii oo naftiisa halaagaya qof naftiisa halaagaya inaad adna ka sii baac mushtaraysood halaagga horseed ugu noqoto waxaa tahay xaaraan mid ku saaciday xaaraanna ka shaqaysanaya ilaahay baa wuxuu uhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan samafalka iyo alla kacabsiga isu kaashada dembi iyo xadgudubna ha isu kaashanina marka waa dembi iyo xadgudubkii oo la isu kaashaday sidaa daraaddeed qofkaasi halkaa wuxuu ka helay dadkiisii uu halaagayo oo uu gubayo oo badda ku daadinayo oo cadowga u dhiibayo waxa weeye gobannimo darre iyo gunnimo aada u xun iyo cadowtinimo weyn marka wixii halkaa ka helaana waa xaaraan weeye dadka arrintaa ku jira ee dhallinyarada soo xidhiidhinaya ee kontaraad halkaa ka raadinayaana ilaahay ha u toobad keenaan oo ha u soo noqdaan intaan geeridu sidaa ugu imanin dadka dilkoodii buu ka qayb yahay qofkaas ilaahayna wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiban ilaahay wuu idiin naxariisanayaae naftiinna ha dilina naftiinna ha dilina macnaheedu waxa weye taadana ha dilin ta walaalahana ha dilin su-aasha labaad ee iyaduna sheegaysa da'yarta ama dhallinyarada qaarkood oo dharkii isku dhajinaya hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba runtii taasi qurux maahee waa foolxumo foolxumo weeye inuu qofkii xubnihiisa halkaa ka muuqdaan wiil iyo gabadh mid kastaba ha aadee foolxumay ku tahay iyo sharaf darro mararka qaarkoodna waxay sababi kartaa qofkani markuu soo bandhigo jidhkiisa meelihii quruxda lahayd quruxda lahaa markuu soo bandhigo in la cawdi karaba oo ilaahay ku dhici karto marka edab darro ayay leedahay arrintaasi dhinacyo kala duwana sidaa daraaddeed sharci ahaanna waa xaaraan dharkuna hadduu raggu gashanayo iyo hadduu dumarku gashanayaba shuruuduhu leeya waxaa ka mid a inaanu qofku isku dhajinin oo hadduu isku dhajiyo macnaheedu waxa weeyaan waa cawradii uu muujiyey cawrada marna maradaa laga qaadaa marka la muujinayo marna waa lagu dhajiyaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaanka markii uu ka sii warramayay dumarka iman doona waxa uu sheegay nisaa'un kaasiyaatun caariyaat inay iman doonaan dumar aan jannada udgoonkeeda helaynin oo qaawan waxna xidhan markay culimada fasirayaan waxay ku fasireen dee waxbay xidhan yihiinoo wuu ku dhajisan yahay waxway xidhan yihiin laakiin wuu ku dhajisan yahay markaa sidaasay maradii ku noqotay miduu qofkii qaawanaan u baxo marka shuruuduu leeyahay dharka la xidhanaya ilaa 8-9 shuruudaha waxaa ka mid a in dharku rag iyo dumar mid kastaba ha gashanaadee uu ka dabacsan yahay markaasuu asturi karayaa markaa staylkan ama nidaamkan iminka wax loo xidho ee daayartu shisheeyaha ay ku dayanayaan ha iska daayeenoo ilaahay ha ka cabsadeen oo cawradooda si wanaagsan oo quruxu ku jirto ha u asturaan jazaak allahu khayr sheekh maxamed ilaahay subxaana wa tacala ha ku barakeeyo miisaanka xasanaadka ha ku saaro